بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد أيها الأحبة وفرقاني صدحات وكسابسا بشان خير كبدن وإنه كسو جري ورأي وحانو قصو هذا اللي أحكام تيدا واجب كأه وحاكرون قصو هذا اللي صنن كبشاني أيلاده هاي اللوبة هي إن الإلاليو وأنت إن شاء الله تعالى waxaynu ka hadli doonaa habeenka bishu ay dhamaato waxyaabo la iska rabo in la yimaado oo isugu jira waxyaabo waajiba iyo waxyaabo sunna ah saddex qodob bay ka kooban yihiin kow zakaatul fitriga labo takbiirta saddex salaadii ciida waxa ugu horeysa zakaatul fitri xukunkeedu muxuu yahay goormay waajibtaa yay ku waajibtaa qadarka la iska rabo in la bixiyo muxuu yahay yaa la siinayaa su'aalaha iyaga insha Allah ta'ala jawaabahooda baan qaadan doonaa waxa ugu horeysa zakaatul fitri xukunkeedu muxuu yahay zakaatul fitri waa waajib xukunkeedu waana waajib cayni ah qof kasta oo muslima ayuu waajib ku yahay sida zakada xooluhu waajib ay ugu tahay xoolaha ay ugu waajibayso sidaas oo kale ayaduna waxay ugu waajibtaa dadka ayay ugu waajibtaa arinta ayada ah دليل كذا نبي عليه الصلاة والسلام حديث بدن باكس أرورتي أو يوريان حديث ابن عمر يا حديث ابن عباس يا حديث أبي سعيد الخدري لما أنتم أي نبي كعب النبي صلى الله عليه وسلم حديث كان عمر وهري فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر نبي وحو واجبي زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة نبي وحو واجبيي زكاة الفطر قدرك واجبيي وصاع من تمر أما شعير قيوة كمدة ويا قيوها زكاة الفطر قالوا بحيو وحونا كو واجبيي قفك الضونك يمتك حرته labka iyo dhadiga qofka yar iyo qofka weyn sharti waxa min almuslimiin inay yihiin dad muslimiina bishana soo gaaray ayaa sharti ah ama dhameystay bishii nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam in la bixiyo zakaatul fitriga salaada intaysan dadku u bixin ka hor in la bixiyo buu nabigu amray ama intaan la tukanin ka hor in la bixiyo saasuu nabi sallallahu alayhi wasallam xadiidkan markaas su'aalihii aynu sheegaynay inta badan isaga ka jawaabay waxa uu ka jawaabay xadiidkani xukunka zakaatul fitriga waa inuu waajib yahay way laba waxa kale ka jawaabay qadarka la bixinayo inuu saac u yahay oo raashin ah ama waxyaabaha la cuno ee quutul qaalibka ah afar saddex wuxuu ka jawaabay cid ay ku waajibayso dadka muslimiinta dhamaantood qof yar iyo qof weyn rag iyo dumar xor iyo ma aragtay adoomaba inay ku waajibayso waxa kale xadiidku ka jawaabay waqtiga la bixinayo dadka inta aysan salaada tukanin ayaa la bixinayaa وقت وجوب كيدو وقتيه سيدا لو بدن يهي ومركي قبل كو دعو مالينكا رمضان لصوصو منا ugu dambeysay habeenka shawaal ka way noqonayso qoraxda dhicitaankeeda ka dambe hadii uu sugnaado haday sugnaato bishii shawaal in la arkay xilligaas wujuubkeedu bilaabanaya wuxuuna ku egyahay salaada intaan la tukanin ayuuna ku egyahay waqtigeedu intaa way zakaatul fitriga yaa la siinayaa نبي كجواب عليه الصلاة والسلام حديث عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة طهرة للصائم من اللقو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل صلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد صلاة فهي صدقة من الصدقات النبي صلى الله عليه وسلم نبي واجب زكاة الفطر waxaana loo waajibiyay qofka saa'imka ahaa inay u noqoto duhri inay u noqoto laqwi iyo hadal xumo iyo waxyaabihii ka dhacay intii soonku gudihiisa ku jiray in looga taahiriyo ama wixii nusqaana ku yimid soonkiisa waxaa loo waajibiyay dadka masaakiinta nabiga sallallahu alayhi wasallam cid marka qaadanaysa waa dadka masaakiinta ama cid la siinayo dadka masaakiinta weeyaan فقراء يا مساكين تأيا لسنا يا سيدنا نصوص النبي كتب صلى الله عليه وسلم ولو بعض أهل العلم أي بنيان آية زكاة دتك لسنا يا أصنافتي سيدتها إن لسنا يا لكن سيدا موضوع إن الحق بدنتها هاي
ama nusuustu ay tilmaamayso waa in lagu siiyo dadka masaakiintaha in la siiyo wey nabigu sallallahu alayhi wasallam waqtiga la bixinayo hore u soo sheegnay xadiidkii hore kana sidoo kale isagana nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofkii bixiya waa zaka la aqbalay qofkii xilliga ka dambeeya salaada bixiyana waa sadaqa min sadaqaad ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam zakaatul fitr marka walaalayaal waa waajibka ina saaran inaga iyo caruurteena iyo ciidan mas'uulka ka nahay qofka culimadu waxay yiraahdaan sharta waxa aquuta yawmi wa leylati wax ka ziyaadan haduu haysto bay ku waajibaysaa waa muhiim qofka zakaatul fitriga inuu iska bixiyo sidii bisha Ramadaan qofkii soomaya waajibka ay ku ahayd oo xil isaga saarayay sidaas oo kale ayaa waxa la rabaa zakaatul fitrigana qofku inuu xil isaga saaro oo bixiyo dad badan waa ay fududaystaan ama xilli aan waqtigeeda ahayn zakaatul fitri keenaan ama maxaan ku radaa waxaan wixii loogu talagalay ahayn bay ku bixiyaan ama dadkii loogu talagalay dad aan ahayn baa laga yaabaa inay siiyaan ama waxa dhici karaysa qofku inuuba waqtigeedii uu ka dimariyo intaas oo dhan midna ay kugu dhicin jaanis bad haysataa bishiina 5 bari baa inooga dhiman isku day inaad insha Allah ta'ala waajibka asaga inaad gudato isku day biidnillaahi ta'ala Allah noo fududeeyo adigana waxay ku tahay tuhrigaas ay ku tahay dambi dhaaf Ilaahay kugu siiyo qodobka labaad waa takbiirtu waxay bilaabanaysaa ciidul fitriga xilliga gobolku dhacay ay bilaabanaysaa waxay ku egtahay salaada ama musallaha markii la tago inta la tukanay salaada ka hor bay dhamaanaysaa salaada ciid hadii la tukado takbiir dambe oo la sii wadayo macnaha ma ay jirto bacdu ilm waxay ka bilaabayaan bacda al-fajr laakiin sida wanaagsan ma aragtay aad moodo inay waafaqayso nusuusta waa in la bilaabo ma aragtay xilliga gobolku dhaco bishii la hubsado ilaahina subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku leeyahay آيات الصيام مركز كسو هذا ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون إن ضم يسترتان سونكينا ما المه سنة ضم يسترتان إلهينا أدوين إنسان وتكبيرتي ويان لقاضي ويان الله أنا أدكو شكران عليه إذن كهنوني إسلام ماذا يواجب كان أدقودتين الله أنا أدكو شكران سبحانه وتعالى sidoo kale hadii nabiga inuu qaadi jiray takbiirta nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadu waa ka sugan kaasa isna daliil u ah amma salaada ciidu sida loo badan yahay waa inay tahay sunna muakkada salaada ciidu waxa la tukanayaa maalinka fitriga ah xilliga gelinka hore ayaa la tukanayaa ka soo bilow qadar rumcu quraxdu markay soo gaadho ilaa iyo inta ay zawaalka ka horeysa muddadeedu waa inta weeyaan sida sunnada dadka muslimiinta inay soo baxaan oo banaanka ay ku tukadaan sida nabigu ahaa sallallahu alayhi wasallam masjidka waxay yiraahdaan culimadu waxa ka fadhi badan salaatul ciid in banaanka lagu tukada ayaa ka fadhi badan nabigana sidaa sameyn jiray masjidkiisa fadhiga badnaa oo jooga ayuu nabigu banaanka intuu baxo iyo ku tukan jiray salaada taa waxa laga qaatay inay ka fadhi badan tahay salaatul ciid banaanka in lagu tukado sida oo kale salaadaas waxa sunna ama sida wanaagsan qofku inuu maartay subaxa ciidul fitriga inuu soo qureecdo ama uu wax soo cuno nabigu soo ahaa tamaraad buu nabigu soo cuni jiray sallallahu alayhi wasallam xilliga la soo baxayo xoogaa yar in la yara bariisto ciidul fitriga ayaa wanaagsan qofku waxa wanaagsan haday suuragal u tahay inuu lugeeyo sida nabigu sallallahu alayhi wasallam gaadiid lagu tagin hadii ayna suurtagal ahayn sida meelaha badan oo caalamka kamid ahna qofku wixii duruufta ku keento looma diidona xaraam ah uu raaci karaa gaadiidka loo raaco ee dhaweeya masaafada dhaweynaya salaatul ciidul fitriga salaadeeda ama salaadu ciidu waxyaabo ay kaga bedelan tahay ayaa jira salaadaha kale waxa kamid ah waajibaadka waxa kamid ah inaysan sunno ka horeysiyo mid ka dambaysan lahayn waxa kamid ah aadaan iyo qaamo midna inaysan lahayn ayaa kamid ah waxyaabahaas marka qofku inuu ilaaliyo ayaa la doonayaa salaada iyo ciidana waxa horeysa salaada ayaa horeyso la tukanaya marka hore kadibna khudbadii iyo maartay la akhrinayaa sida nabigu sameeyay jiray sallallahu alayhi wasallam dadka muslimiinta inay dhageystaan waa sida fiican laakiin dadku ay fasaxan yihiin oo way tagi karaan hadii ay rabaan laakiin wacdiga iyo khayrka iyo iimaanshaha muslimiinta iyo ducadooda in laga qayb qaato oo la joogo ayaa wanaagsan salaadu hadii ay dhamaato takbiiraadka iyo wixii la qaadayo meesha ay ku dhamaanayaan jidkii uu ku baxay jidaan ahayn qofku inuu ku soo laabto ayaa wanaagsan waxa oo sunno ah sida oo kale culimadu waxay leeyihiin maalmaha inuu qofku qabaysto inuu qofku dharkiisa u wanaagsan uu xidho inuu qofku maartay soo cadireysto sida jumcadii oo kale maadaama ijtimaaci jumcada kale weyn ay tahay sidaas wanaagsan ayay leeyihiin inkastoo aysan waajib ahayn marka salaadu ciidana qiimaha ay leedahay nabiga sallallahu alayhi wasallam xitaa gabdhaha xabadka lagu soo bixi jiro salaad lagu lahayn si ay meesha u xaadiraan qofkii taahirana waa min baabil awla
inuu ka qayb qaato maalinka oo shaciirada islaamka uu wax ka ogo oo dadka muslimiinta uu la ducaysto oo dadka muslimiinta maartay uu la ogo shacairka islaamka sidaas baa maartay baa loo baahan yahay khaasatan dadka hadeer aan joogin wadamada aan dowladahooda islaamka ahayn ama islaamku soo badnayn aad bay u fiican tahay inay isu wada yimaadaan maalinkaas oo salaada ay wada ogaan oo waliba meel bannaan ay ku tukadaan maxaa yeelay waa dacwo la gudbinayo oo mujtamacu intiisa kale loo gudbina weeyaan axibati limaan waxaa idin dardaarmaya aniga naftayda idinkaba inaynu ku dadaallo waxyaabaha waajibaadka ilaahay una saaray sida ay yihiinna aan ula nimaadno inaan ku dadaallo sidoo kale waxyaabaha sunanka ah siday u yimaadeen oo nusuusta ugu soo aroortayna aan u raacno ilahay waxaa weydiisanaynaa subxaanahu watacaala inuu na waafajiyo fahamka iyo camalka diinta alle inuu na waafajiyo oo nagu sugo jazaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum sala allahu wasalam wabaarak calaa nabiyina maxmedin wacala aalihi wasaxbihi wasalem